بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين دhammaantiin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan ku wada jirnaa mid ka mid ah xarumaha ay dadweynuhu ay ka codeynayaan waa doorashadii Somaliland madaxweynaha 2017 maanta taariikhdu bishii 13 saako xarunimadii hore dadweynuhu waxay u dareereen goobaha bixinta iyagoo muhaay xamaasadii hayso si ay u codeeyaan waxaan ku suganahay seen sheegnay mid ka mid ah goobaha dadweynuhu ku codeynayaan waa magaalada Burco inta gobolka Togdheer shooyinka ayaa fadhiya muraaqibiintii ayaa muhaay halkan fadhiya oo yani eegaya muhaay sida ay u socdaan oo ka socda muhaay muraaqibiintii kale ku jira doorashooyinka runtii shaqadu halkan waxay u socotaa qofku markuu soo galo kulinaya muhaay sii sugo labadan hablood ayuu soo marayaa marka la soo geliyo safar dheer ku jira dadweynuhu halkan la hubinayaa qofka magaciisa kaarka ayaa la soo eegaya magaca ku qoran ay haystaan dadweynuhu ugu qoran haddii magaca laga helo waxa loo sii gudbinayaa inta kale iyaduna way sii hubinaysaa kaarkii codeynta ayay usii gudbinaysaa kaarka codeynta qofka waxay weydiinaysaa hadduu qofka codeyn karo oo isagu kuma calaamadsan karo isaga toos tagaya meel qarsoon oo ku soo calaamadinaya ana awoodi karin waxa weeye waxa uu calaamadinaya muraaqibiinta saddexda ee fadhiya halkan ayaa uu calaamadinaya oo weydiinaya qofka xisbiga doonaya marka sida ka muuqata ilaa hadda waxa weeye si la isla ogyahay xitaa dadka aan garanay meelaha ay calaamadiyeen way badan yihiin dadkaas runtii xaqiiqatan aad ayay u badan yihiin halkan waan ku sugnaa ilaa badh waxa weeye waxaan aad u arkayay dadweyne badan oo aan garanayn calaamadsan oo loo calaamadinayo yani taas waxay caddaynaysaa inay aad u badan yihiin dadkeennuna waxay u badan yihiin dad umiyiina oo aan ahayn aan qorin laakiin doonaya inay muxuahay wax isbeddel sameeyaan doonaya inay muxuahay madaxdooda doortaan insha allah waxaan doonaa idiin soo gudbino muuqaalo kala duwan insha allah haddaan nahay warbaahinta jirtaan insha allah goobaha yani laga codeynayo sida ay wax u dhacayaan si ay wada ogaataan halkan maxaa ka socda shafaafiyadda jirtaan doonana inaan ogaano maadaama aan warbaahintii nahay yani waxa weeye inaan soo gudbino muuqaalada dhabta halkan maxaa ka dhacay sidee baa loo codeynaya darajadee baa la maraya dacallada caalamkaad joogtaan insha allah annaka insha allah idinkaa qabtiri doona يعني باهيها يدين دولي دولنا إن شاء الله طول اليوم إلا عاو وحوي ونديسو قدبنا إن شاء الله بإذن الله الكريم الفيسبوك اللي مثلا نقرأ على الطريقة نقرأ على هذا إن شاء الله وحال سودينا يوم سي شقية مع أنها صوص بإذن الله الكريم حتى هذا كان نجوا إيدان وهاي بلا بدأ عندنا نجوا إيدان إحدى مقدمة مادي أي ناس نجوا إيدان ونسيس وحال نقرأ على إنسان شركات نتكم أي نقرأ على إنسان مريك تسا نقرأ على إنسان إن شاء الله وحوي ولي ونديسو قدبنا جوابك لتونا يوم تيجي دونا waxaan ku suganahay طبعا saan u sheegay Burco ayaan ku suganahay waa goob cod yani cod bixiyaashu ay isugu yimaadeen saacadu sagaaladii subaxnimo xilliga magaalada Burco waxaad la socodsiinaya Cabdimalik Sheekh Muuse Doon daawasho wanaagsan wixii aad su'aalaha qabtaan insha Allah waxa weeye faalo ayaad ku qoraysaan insha Allah waxa weeye waa idinka soo jawaabi doonaa biidin ilaahay isku daya marka meeshaan joogno iyo sida goobta aan muuqaalka soo gudbinayno iyadoo cilmaan oo iyadoo qoranaya xagga sare aad u tagaysa imika xagga sare waxaa ku qoran toos doorashada Somaliland xariijin Burco haddana waxaa dhacaysa dad la weydiinaya goobta waanka
dawadayaasha waxaa inala socda saynu sheegnay waxa weeye waa goob ka mid ah goobaha codka maxaa lagu bixinayo waa magaalada Burco waa doorashadii Soomaaliland madaxweynaha waa 13kii bisha 11aad 2017 maanta dadweynaha Soomaaliland in ka badan 700,000 oo qof waxa u soo dareereen inay kala saaraan saddex nin oo doonaya madaxweynaha Soomaaliland inay u noqdaan وموسى بيه عبدي iyo Cabdiraxmaan Xirro iyo Faysal Cali Waraabe saddexdaas ay dadweynuhu maanta kala saarayaan oo codkooda ku kala saarayaan waxa ay bixintu bilaamatay aroornimadii hore saaka waxa lagu wadaa 6 maqribnimo haddii aan wax kale lagu darin inay soo gabagabowdo oo ay la bilaabo in maxay sanaadiiqda la xidho si loo bilaabo tirinta runtii indhaha يعني هير Somaliland waxa ay halka waxay soo eegayaan doorashadan ay soo eegayaan waxa weeye waxa la eegayaa sida ay u dhici doonto warwar baa dadka qaar haya laakiin alxamdulillah ilaa hadda wax warwara ma jiraan amnigu wuu sugan yahay si fiican baa loo shaqaynayaa dadweynuhu runtii mas'uuliyad bay dareemayaan safafka ayay taagan yihiin si nidaamsan goobaha gudaha markaad soo gashid shaqadu si fiican bay u socotaa ilaa hadda waxa muuqaalada aanu idin soo gudbinayno aanu aragno insha Allah natiijo ayaa ka soo bixi doonta maalmaha soo socda madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waxa uu ka soo baxaya waraaqaha la jarayo ay dadku ay ku qorayaan calaamadinayaan iyo musharaxa ay u badinayaan waraaq kasta waxa weeye saddex calaamadood ayaa ku qoran saad u jeedaan
xisbiyada waxaa u sarreeya ucud baa u sarreeya kulmiyaa ku xiga wadani baa ku xiga muwaadinku meesha uu doonayo hortiisa tusaale ahaanka yani ucud doonaya halkaasuu calaamadinayaa calaamad buu calaamadinaya ka kulmiya doonaya halkan uu calaamadinaya ka wadani doonaya halkan uu calaamadinaya marka dadweynuhu inna way calaamadsanaysaa inna waa la hagayaa runtii hagitaan laysla ogyahay sida ka muuqata oo muraaqibiinta saddexda ee halkaa fadhiya ayaa loo geynaya iyaga ayaa weydiinaya iyadoo laysla dhanyahay guddiguna la joogto weydiinaya halkee lagu calaamadiyaa marka meeshii uu doonayey ayay u calaamadinayaan qofka kalena halkan muxuu ahay kusoo halkan uu la gelayaa meesha yaraa la gelaya bartan ayuu ku qorayaa qalinkii waa u diyaar halkaasuu ku calaamadsanaya kadibna waxa weeye halkan sanduuqan laysla arkayo ee dhexda yaalla ayaa muxuu ahay lagu ridayaa sanduuqaas ayaa lagu ridayaa sanduuqaasoo dadka u dhexeeya oo yani caaga oo laysla arkayo shafaafa oo waxa ku jira iyo wixii gudaha ku jiray inaanay hore ugu jirin laysla garanayo ayaga hooyooyinka runtii hooyooyin badan ayaa saaka aanu la kulannay oo shaqooyinkii guryaha ka yimi oo codaynaya yani waxyaalaha runtiina soo jiitay bay ka mid yihiin hooyooyinkaa u badan oo ragga ka badan baad soranaysaa muuqaalada aanu arkayno inta soo gelaysa يا تعيش اساس تعيش هنا منكم هذا انا قاعد صديق شوي هي يا هذوك كانت تعيش هاي وضعيه كانت تعيش وضعيه نقصي فكرة وتجي نبغى هي سوي صعب اسمع على الأخبار magacaygu waa raxmi maxamuud jaamac waxaan ku qoranay goobta balaaseen joogno walaahi runtii si fiican bay meesha u socotaa inkastoo ilaa xali joognay ilaa maanta aan ku shaqaynay aad iyo aad u fiican tahay wax dhibana weli maanaan arag sidee bay maxaa cod bixiyaashu soo galayaan tallaabooyinkii soo mareen tallaabooyinkii loogu talagalay soo mareen askartii baa halkaas taagan gudoomiye ku-xigeenka beelbeebka sidoo kale fadhiya sidii loogu talagalay u socotaa hawsha hadii qaabka halkee mareen darajooyinkee mareen say darajooyinka lama caddayn karo mana eegi karna imka anagu mana sheegi karna marka la may maxaa ka wadna halkay soo fadhiisanayaan halkay marayaan intan darajooyinkee soo mareen marka qofka kasoo gala gudoomiye ku-xigeenku soo hor istaagaya gudoomiye ku-xigeenkii baa soo nadiifinaya fartiisii kaadhkiisii buu hubanaya iyo wejigiisii inay sideeg yihiin بعدين احنا بهايهي بقى لوي منين تصدق دي مراقب لصهر مرة بعدين انا كارتي لو وريجي كارتي قفت من شيء وقدي بنو بيني نكا هويها بعد انا وريجي تصاوش بسرعه ما سيدي هذا ما سيدي هذا ما سيدي طيب بس هذا
السلام عليكم. الحمد لله والله سويت. الحمد لله. markii adaa codsaday min anaa codsaday anaa doonaya anaa cadeynaya meesha la codeynay maanta basharay waxa weeye maanta waxa weeye waa qarsoodi maanta may inaan maanta cadaysid meen ana waxa isla wax kale aad ku qabanaysaa subax igu qabo muuqaalkaaga on mali ma jiro ma islahayn muxuu waxa weeye baalka waraaqda ay tusaysaa laakiin may waxa weeye waa qarsoonta codayntu waa in lagu qabto ma السلام عليكم. سووا شريك. गाड़ी भी होता ما होता गाड़ी गाड़ी में सानी है गाड़ी रमन गाड़ी से कहाँ बस وهي هي ان شاء الله قوب كلا ينتقي دونا ان شاء الله يغبط ساسا waxaan ka nimi imika sida caadiga waxaan ka nimi imika goobtaas ayaan ka nimi cod bixinta insha Allah waxaan tagi doonaa goobo kale ayaan tagi doonaa insha Allah saanu idinku soo gudbino salaam alaykum baadi ayo bal dooran ma ereyga maxaad ku halkan iyo dareenkaaga kulli aad iyo aad baan codanay soo nabadgelyo iyo nabadgelyada waan codanay ayo wala ku dhaahan tahay ma sha Allah alxamdulillah ما شاء الله وحوي عضيتي الناس ايام معايا wax ka bedeli doonta in sha Allah doorashada madaxweynaha dad badan bana daawanay in ka badan kun qof bayna daawanayo daalada caalamka doonayo dheeri badan lahayd eriga maxay ka dhee maanta bal loogu waran adigu iyo adiga laftaada maxay noo sheeg magaya qorsheed xisbi oo day batay alxamdulilah rabbil caalamiin goobtan magayada way ka duwan tahay goobaha aan soo marnay waxaa jira xisbiga kulmiye mas'uuliyiintiisa toban iyo 20 bil u galayaan oo ayagu access u leeyihiin inay galaan anagana kormeerkayga oo ka dibadda taagano hal qof oo kormeerkayga ay ma gali karo dibadda waxay ka mid tahay goobaha isha gaalka ee hadii la ka diidaya maamulka meesha waa qoyna madada kormeerka hada hore u socbuuqin da aragtida da ku qabo ku caadi marka maca saxaafadda deemka in ka saxaafadda wax ka gubanayeen oo aan arkaayo waa wax cadaan ah waana eegi marka aad mari qabsaniyo oo kuwan kormeerkayga hagale moolkayga kormeerkayga waa kan يعني waxa weeye kulli cabashadina idinka garanaya cid aad u bisana warbaahin baan nahay idinka garanaya insha Allah cabashooyinkiina cid aad u gudbinaysaan insha Allah biidin ilaahi karim wad ma santiin waxa weeye codkiina kamid oranaysa maxaad saacashana tiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka hadlayaa ninka hadlay ee yiri kormeerkayga dibadda taagan yihiin oo noloma ogola hadda goobtan kulmiye ka eedaynayo qisa ka dhacday qisa lagu hayo xisbiga wadani waxa la hayaa nin lacagta diraya dadkana kaarka ka warnaya عادي ببانتي وحصل عادي ببانتي ان شاء الله ما يقول بدي ابو صحفي بعد Thank you.
على مدري بدأت تطلع على الثانية على سكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين دhammaantiin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan ku guda jirnaa mid ka mid ah xarumaha ay dadweynuhu ay ka codeynayaan waa doorashadii Somaliland madaxweynaha 2017 maanta taariikhdu bishii 13 saako xarunimadii hore dadweynuhu waxay u dareereen goobaha bixinta iyagoo maxay حماسة هاي سوسيال قضية، إحنا شغلنا هنسين شغلنا مثل كمية جوابها بدون قعدانية ومجالات البرعة، أنت دول كتبنا شوي كيا فكيا، راقبين كيا معها كفريا، أو يعني إيه معها سلاح وصعدان، وكسر معها راقبين كلا، كنت دول شوي، أبغى شيء شغل واحد صعدان، بدون مش صعدان، كلنا يعني معها سيسوق. labadan hablood ayuu soo marayaa marka la soo geliyo sidoo dheer ku jira dadweynaha halkan la hubinaya qofka magaciisa kaarka ayaa la soo yeegay magaca duwan magaca ku qoran ay haystaan duwanka ugu qoran haddii magaca laga helo waxa loo sii gudbinayaa dadka kale iyadoo way soo hubinaysaa kaarkii codaynta ayay sii gudbinaysaa kaarka codaynta qofka waxay weydiinaysaa hadduu qofka codayn karo oo isagu ma calaamadsan karo isaga toos tagaya meel qarsoon oo ku soo calaamadinaya أنا أول كريم وحوي على مدنية مراقبينتا صدق هذا فرديان هل كان أيام يروح على مدنية ويدينا يقف حسب الدوري
marka sida ka muuqata ilaa hadda waxa weeye si la isla ogyahay xitaa dadka aan garanayn meelaha ay calaamadayeen way badan yihiin dadkaas runtii xaqiiqatan aad ayay u badan yihiin halkan waan ku sugnaa ilaa badh waxa weeye waxaan aad u arkayay dadweyne badan oo aan garanayn calaamadsadan oo loo calaamadayo yani taas waxay caddaynaysaa inay aad u badan yihiin dadkeennuna waxay u badan yihiin dad umiyiina oo aan ahayn aan qorin laakiin doonaya inay isbeddel sameeyaan doonaya inay madaxdooda doortaan insha allah waxaan doonaa idiin soo gudbino muuqaalo kala duwan insha allah haddaan nahay warbaahinta jiritaan insha allah waxaan doonaa idiin soo gudbino goobaha yani laga codaynayo sida ay wax u dhacayaan si ay wada ogaataan halkan maxaa ka socda shafaafiyadda jirtaan doonana inaan ogaano maadaama aan warbaahintii nahay يعني وحوي إن السوق بدون مقالة نبتع هل كان معك داعي سيدي بالله عضيني درجة سيدي بالله مريا دعنا العالم كتشوف كان إن شاء الله أنك إن شاء الله إذا قبتلي دونا يعني الباهية هاي دي دولي دونا إن شاء الله طول اليوم إلا عاو وحوي وندي سوق بيننا إن شاء الله بإذن الله الكريم الفيسبوك اللي مثلا نقرأ سعود ترى نقرأ سعود إن شاء الله وحال سودينا سي شقية مع المها صوص بإذن الله الكريم haddii halkan naga weydaan oo ay balaa badhacdeen naga weydaan lixda maqdimaaddii ay noo suuro gali weydeen oo sii socdo waxaad nagala soconaysaan jiritaan.com ayaa nagala soconaysaan mareegtaasa nagala soconaysaan insha allah waxa weeye weli waan idiin soo gudbinaynaa goobo kala duwan ayaan tegi doonaa waxaan ku sugannahay dabcan saanu sheegnay burco ayaan ku sugannahay waa goob cod yani codbixiyayaashu ay isugu yimaadeen saacaddu waa sagaaladii subaxnimo xilliga magaalada burco waxaad la socodsiinaya cabdimalik sheekh muuse cabdoon daawasho wanaagsan wixii aad su'aalaad qabtaan insha allah waxa weeye faallo ayaad ku qoraysaan insha allah waxa weeye waa idinka soo jawaabi doonaa biidn illah alkarim isku daya marba meeshaanu joogno iyo sida goobta aan muuqaal ka soo gudbinayno iyadoo cilmaan oo iyadoo qoranaya xagga sare aad u tegaysa iminka xagga sare waxaa ku qoran toos doorashada somaliland xariijin burco haddana waxaa dhacaysa dadna weydiinaya goobta wahanka
daawadayaasha maxaa inala socda saynu sheegnay waxa weeye waa goob ka mid ah goobaha codka maxaa lagu bixinayo waa magaalada burco waa doorashadii somalilan madaxweynaha waa 13kii bisha 11aad 2017 maanta dadweynaha somalilan in ka badan 700,000 oo qof waxa u soo dareereen inay kala saaraan saddex nin oo doonaya madaxweynaha somalilan inay u noqdaan وموسى بيه عبدي iyo cabdiraxmaan xirro iyo faysal cali waraabe saddexdaas ay dadweynuhu maanta kala saarayaan oo codkooda ku kala saarayaan waxa ay codbixintu bilaamatay aroornimadii hore saaka waxaa lagu wadaa 6 maqribnimo haddii aan wax kale lagu darin inay soo gabagabowdo oo ay la bilaabo in muxuu sanaadiiqda la xidho si loo bilaabo tirinta runtii indhaha يعني غير سوماليلاند waxa ay halka waxay soo eegayaan doorashadan ay soo eegayaan waxa weeye waxa la eegayaa sida ay u dhici doonto warwar baa dadka qaar haya laakiin alxamdulillah ilaa iyo hadda wax warwara ma jiraan amnigu wuu sugan yahay si fiican baa loo shaqaynayaa dadweynuhu runtii mas'uuliyad bay dareemayaan safafka ayay taagan yihiin si nidaamsan goobaha gudaha markaad soo gashid shaqadu si fiican bay u socotaa ilaa hadda waxa muuqaalada aanu idiin soo gudbinayno aanu aragno insha Allah natiijo ayaa ka soo bixi doonta maalmaha soo socda madaxweynaha cusub ee Somaliland waxa uu ka soo baxaya waraaqaha la jarayo ay dadku ay ku qorayaan calaamadinayaan iyo musharaxa ay u badinayaan waraaq kasta waxa weeye saddex calaamadood ayaa ku qoran saad u jeedaan xisbiyada waxa u sarreeya ururka baa u sarreeya kulmiya ku xiga wadani baa ku xiga muwaadinku meesha uu doonayo hortiisa tusaale ahaanka yani urur doonaya halkaas uu calaamadinaya calaamadinaya ka kulmiya doonaya halkan uu calaamadinaya ka wadani doonaya halkan uu calaamadinaya marka dadweynuhu inna way calaamadsanaysaa inna waa la hagayaa runtii hagitaan la isla og yahay sida ka muuqata oo muraaqibiinta saddexda halka fadhiya ayaa loo geynaya iyaga ayaa weydiinaya iyadoo la isla leeyahay guddiguna la joogto weydiinaya halkee lagu calaamadiyaa marka meeshii uu doonayay ayay u calaamadinayaan qofka kalena halkan wuxuu ahaa ku soo halkan uu la gelayaa meesha yaraha la gelaya bartan ayuu ku qorayaa qalinkii waa u diyaar halkaas ku calaamadsanaya kadibna waxa weeye halkan sanduuqan la isla arkayo ee dhexda yaala ayaa maxaa lagu ridayaa sanduuqaas ayaa lagu ridayaa sanduuqaas oo dadka u dhaxeeya oo yani caaga oo la isla arkayo shafaafa
oo waxa ku jira iyo wixii gudaha ku jiray inaanay hore ugu jirin la isla garanayo ayaga hooyooyinka runtii hooyooyin badan ayaa saaka aanu la kulannay oo shaqooyinkii guryaha ka yimi oo codaynaya yani waxyaabaha runtiina soo jiitay bay ka mid yihiin hooyooyinka u badan oo ragga ka badan baad soranaysaa muuqaalada aanu arkayno inta soo gelaysa يا تعيش اساسا تعيش هنا هذا انا قاعد صديق وي يا هذوك كانت تعيش هذا كانت تعيش هذا joogno wallahi runtii si fiican bay meesha u socotaa inkastoo ila xali joognay ilaa maanta aan ku shaqaynay aad iyo aad u fiican tahay wax dhibana wali ma aan arag sidee bay maxay cod bixiyaashu soo galayaan talaabooyinkii bay soo mareen talaabooyinkii loogu talagalay soo mareen askartii baa halkaas taagan gudoomiye ku-xigeenkii baa albaabka sidoo kale fadhiya sidii loogu talagalay u socotaa hawsha hadii qaabka kamereen darajooyinkii mareen sayid darajooyinka lama cadayn karo mana eegi karna imka anagu mana sheegi karna marka la may maxaan ka wadnaa halkay soo fadhiisanayaan halkay marayaan inta darajooyinka soo mareen qofka ka soo galo gudoomiye ku-xigeenku soo hor istaagaya gudoomiye ku-xigeenkii baa soo nadiifinaya fartiisii kaadhkiisii buu hubanaya iyo wejigiisii inay isleegyihiin بعدين نحب هاي بقى لوي منين تصدق مراقب لصهر مرة بعدين أنا كارت في لوريجي كارت في قصة من سيجي وقد بنقولنا نكا هو بيها بعد ما لوريجي تصاوش بسرعة ما تسلي هذا المس ما تبغى ما ستي هذا المس هذا المس السلام عليكم. الحمد لله ولا سويس. الحمد لله. markii adaa codsaday anaa codsaday anaa doonaya anaa cadeynaya meesha la codeynay maanta basharay waxa weeye maanta waxa weeye waa qarsoodi maanta may ana maanta cadaysid meen ana waxa isla wax kala ku qabanaysaa subax igu qabo muuqaalkaaga on melay ma jiro ma islahayn muxuu waxa weeye baalka waraaqda ay tusaysaa laakiin may waxa weeye waa qarsoonta codeyntu waa in lagu qabto maanta
السلام عليكم سووا لي شريك गाड़ी भी होता ما होता गाड़ी गाड़ी में सगानी है गाड़ी रमन गाड़ी सगार बस وهي هي نحوها ان شاء الله قوب كلا ينتقي دونا ان شاء الله هي قبل ساسا waxaan ka nimi imika sida caadi waxaan ka nimi imika goobtaas ayaan ka nimi cod bixinta insha Allah waxaan tagi doonaa goobo kale ayaan tagi doonaa insha Allah saanu idinku soo gudbino salaam alaykum baadi ayo bal tooran ma ereyga maxaad qoran halkan iyo dareenkaaga kulli aad yaa baan codanay soo noolgeliye iyo nabadgelyada oo codanay ayo wala wad ku dhaahan tahay ma sha Allah alxamdulillah ما شاء الله وحوي عضيتي ناس ايام معها wax ka bedeli doonta in sha Allah doorashada madaxweynaha dad badan baan daawanay in ka badan kun qof baan daawanayo daalada caalamka daawanay eri badan lahayd eriga ma ka dhe maanta bal looga waran adigu iyo adiga laftaad ma noo sheeg magaya qorsheed xisbiga wadani ma tahay sida wasaaradda alxamdulillah العالمين goobtan magaalada way ka duwan tahay goobaha aan soo marnay waxaa jira xisbiga kulmiye mas'uuliyiintiisa toban iyo 20 bil u galayaan oo ayagu access u leeyihiin inay galaan anagana kormeerkayga oo ka dibadda taagano hal qof oo kormeerkayga ay migil karo dibadda waxay ka mid tahay goobaha isha gaarka ee hadii ay ka dhigayaan hadiidaya maamulka meesha oo ku ayna mareeyo kormeerka هذا هو روس عبوق da aragtidooda da sidaas ah ku qabo caadi marka maca saxaafadda deemka ilka saxaafadda wax ka gubanay oo arkaayo wax cadaan ah waana eegti marka انا عاد مالي قبسنيو oo kuwan kormeerkayga hagale يعني waxa weeye kulli cabashadiina idinka garanaya cid aad u gudbisana warbaahin baan nahay idinka garanaya insha Allah cabashooyinkiina cid aad u gudbinaysan insha Allah biidnillahi alkarim wad ma santiin waxa weeye codkiina kabid oranaysa maxaad saashay tiraay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ka hadlayaa ninka hadlay ee yiri kormeerkayga dibadda taagan yihiin oo noloma ogola hadda goobtan kulmiye ka eedaynayo qisa ka dhacday qisa lagu hayo xisbiga wadani waxa la hayaa nin lacagta diraya dadkana kaarka ka warnaya عدي ببانتي حسن عدي ببانتي ان شاء الله ما يقول بدي ادو صوفي بعد